السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل توعن ونكسن داودية شقيمة هي قدرتكم من المركز الدنيا تشكتان عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إلهي سبحانه وتعالى هنقا قبل الأعمال شنتين سوا قبلني عيدا هنقول قرسية بشبشية برواقية فرحدية عافمات با تعوض يا الواحد لأن هي كسود وهذا مقال كيني برشة مادة بيولوجيا أو 10 كاستحالة isla markaana ku dhigan doono qaybta labaad ee 10kii lesson 2ga inooga harsanayd insha Allah taala ku qaada dhigi doona isla markaana ku faahfaahin doona astaamaha ay kaga duwan yihiin noolayaashu ma noolayaasha ama living things ay kaga duwan yihiin non living things soo dhawaada daawadayaal daawasho aynu ku horeyno hadda midho ugu horeyno ta ugu horeysa movement به وردقات إنسانية animals نولاياشو أما حيواناتو move وردقاقان by using يوجا استعمالية their legs لوجوه wings كربة ما هو بالش سيد شمبريه وكله legs كانوا لوجها نوع استعمالات ده سيد بلادن كيو كله حواليه وكله وحكستول لوجله وجرانسا legs استعمالات مركو دقاق أيوه wings وقربيه مركا ما بالاشي مركا بالاشة أما قربها واحد استعماله ما محي شمبريه وكله مركا ده دقائق يجمو فنتي واحد سميه ما محي قربيه بيستعمله يعني ما بالاشي أو فينس كمركا واحد استعماله كلونكا مركا واحد يقولين هل كي يقولين لاجسكا لغها يو قربوها أما واحد بالش يقولين أنا مالسكا أي سو يقولين مركا واحد سامحين موفمنتي كمر دقائق بلانتس درتو موف هذا باك هل كاي مك أنا مالسك بين شغني درتينا وانولاش بكم تهم دام نولاش كم تيجي سير دقائق سميسا بلانتس درتو موف واحد دقائقان by growing يو كوريا towards دنكا عرنتا مركا حاجة عرنتا كهتو يو كوريا سو or ما بقى away from يعني وككوريا استملا عرنتي حاجة عرنتا يو ككوريا مركا يمكن تصارهان جيتكي xididkiisana hoos buu iyo koraa yani laamihiisi iyo jiridiisi qaybihii kalena waa maxay kor bay u koraan marka shayga haduu kor u korayo ka koridu yahayna waa maxay away from weeyaan hadii uu wax weey uu dhankii stimuli ama dhankii arintu ka yimaadana uu korayana waa maxay waa towards stimuli waa arintii talabaad animals xayawaanada feed waxbay quutaan sababtoo qodanaya maxay to produce ilaa soo saaraan energy tamar and grow oo koraan de waxa xulnaa wax weey waa korto waxa weeyaan tamar aad ku shaqeyso waxa weey soo saarto they eat waxay cunaan other living things shayada kale ee nool plants dirtuna maxay sideeba iyagu u quutaan wax make waxay sameeyaan their own food cuntadooda iyaga sameeysta by habka u sameystaan waxa weey by process hab loo yaqaano photosynthesis habka cunto sameysanka waxa weey ay dhirtu isticmaalayso cad iftiinka cadceedda qorraxda iyo carbon dioxide iyo nafaqadii ay ciidda ka heshay ay intaas isku geysato ay dhirtu isticmaashaa iyadoo cuntadeeda iyada sideedu sameysata marka bini'aadanka iyo xayawaanada kale iyagu cunto diyaarsan ayay cunaan laakiin dhirtu cuntadeeda iyada sameeysta qodobka saddexaad waxa weey animals noolayaashu ma xayawaanadu only grow way koraan ilaa goorma hadaba korayaan ma koritaanka ma wadayaan until ilaa they reach ay gaaraan a certain height joog yani go'an ama waxa weey de yani xadidan oo halkii loogu tala galay shaygaas halka uu ku istaago yani marka waqtiga da'da uu gaaro inuu wax weey koritaankiisa istaago bilaadanka ama wax weey noolayaasha ama xayawaanadu u kala duwan marka certain height ama joogde wax weey go'aanooda wax weey certain wax weey la gooyay ay wax weey mid kastaaba uu ku istaaga koritaankiisa marka ilaa inta halka ka gaariyo maxay koriinka uu wadaya animals plants dirtuna however 60 haataba iyagu maxay sameeyaan garow way koraan continuously si wax way joogtaa ayay u koraan all through their lives inta noolihiin noloshooda inta dhirtu wax way nooshahay geedkaas koritaanka uu wadaya laakiin bini'aadanka iyo xayawaanada kale way ka duwan animalsku iyagu waa maxay certain height bay leeyihiin marka ilaa ay ka gaariyaan halka loogu talagalay inay ku istaagto koritaanku iyagu way wadayaan koritaanka marka meesha gaaraan bes koritaanka wala joojinaya
laga yaabo in qaybo ka mid ah bini'aadamka kale iyo wax la yiraahdaa sanko kale iyo wax weeye koritaanka ma joojiyo oo ma istaajiyo la dhahdaa marka waa maxay in yaro ka mid oo laga yaabo in koritaanka joojinin xubno yaro ka mid ah ama organism ka mid ah laakiin noolaha sidiisaba koriinka caadiga ah dhameystiran jirkiisa marka laga hadlayo waxa uu leeyahay certain height plants ku dhirtuna waa maxay noloshooda inta nool yihiin way wadayaan qodobka afraad living things noolayaashu need waxay u baahan yihiin energy tamar marka tamarta waxa lagu saarayaa hab loo yaqaan respiration oo cunto gubistiya in cuntada la burburiyo deetana tamar laga saaro marka living things noolayaashu need waxay u baahan yihiin energy tamar to grow so u koraan ay koritaan u sameeyaan to move so u dhaqaaqaan and enable uu ogolaadaan the body jirka to properly sax inuu koro isla markaana sax ah uu dhaqaaqo marka sababta ugu baahan energy tamarta waxa weeye living thingsku waa inay koritaan sax iyo waxa weeye dhaqaaq sax ay sameeyaan marka respiration ama cunto gubistu laba qaab ay u dhacdaa aerobic respiration iyo anaerobic respiration aerobic respiration dad maqasho oxygen baa la isticmaalaya cuntada marka la gubiyo anaerobic respiration marka maqashana wax oxygen lama isticmaalayo hadaba energy tamarta is released waxa laga soo daayaa oo laga helaa from food cuntada in a process waxaana laga helaa hab loo yaqaan hab called loo yaqaan respiration cunto gubis respiration marka waa cunto gubid mana cuntada in la gubo oo waxa weeye energy ahaan oo tamar ahaan loo saaro tashanaad waxa weeye all living things dhammaan noolayaashu baa la guuriyay produce waxay soo saaraan waste qashin such as the carbon dioxide ki bini'aadamka waa soo saaraya waxaan jeedaa noolayaashii animals carbon urine ayaa ka mid ah oo all living things dhammaan noolayaashu produce waxay soo saaraan waste qashin such as the carbon dioxide oo noolayaashu dhamma soo saaraya urine waxa weeye kaadidii waxaa kaloo ka mid ah feces iyo saxaradii marka the removal saaritaanka of waste qashinka laga saarayo from the body jirka laga saarayo is called waxa loo yaqaan excretion qashin saar qodobka inoogu xigaa waxa weeye animals xayawaanada ambulance iyo dhirtu exchange waxay isdhaafsadaan gases neefaha oxygen waa gaseska marka waxa weeye waa oxygen iyo carbon dioxide marka oxygen waxa isticmaalaya maxay animalski noolayaasha carbon dioxide kana waxa isticmaalaya dhirti baa isticmaalaysa marka ayagu animalsku waxay isticmaalayaan oxygen for respiration cunto gubisti ama waxa weeye inay intii cuntadii la burburiyo energy ama tamar ahaan laga saaro aan photosynthesis sidoo kale maxay isticmaalayaan maxay in waxa weeye cuntada ay ku sameystaan marka photosynthesis waa qaabka uu geedku cuntada ku sameysto isagoo isticmaalaya iftiinka qorraxda cadceedda iyo carbon dioxide-ka uu ka helay animalska iyo waxa weeye ciidii nafaqadii ugu jirtay ku jirtay ciidda uu ka helay xididada iyo biyihii ugu kaydsanaa xididada inta markuu isku geeyo ayuu cuntada sameysanaya marka respectively waa sida ay waxa weeye ay isku xigaan marka oxygen baa horeysa carbon-ka ku xiga inagu inta badan marka neefsanayno maxaynu hor qaadanaa oxygen hor qaadanaa carbon-ka inuu sii deena marka oxygen waxa inaga qaadanna carbon dioxide kana maxaa qaadanaya dhirtii baa qaadanaysa oo isticmaalaysa inay cuntadeedii ku samaysto astaanta toddobaad animals xayawaanadu waxay isticmaalaan sense organs xubnaha dareenka marka sense organsku waa xubnaha dareenka ama xawaasta such as sida eyes indhihii and ears iyo dhagihii marka indhihiina waxa weeye wixii arkaan oo ama ku soo socda way ka falceliyaan dhagihina waxay maqlaan way ka falceliyaan to respond marka si uga jawaab celiyaan what's going on waxa ku dhacaya ama waxa ku soo socda maana waxa ku dhaca ama waxa weeye ku dhacaya ama waxa ku soo socda inay ka jawaab celiyaan marka plants dhirtuna do not have malaha sense organs xubnaha dareenka malaha marka plants dhirtu do not have malaha sense organs xubnaha dareenka but laakiin can still waxay sii wadi karaan react falcelinta yani inay ka falceliyaan to think shayada such as sida light ilayska and water iyo biyaha marka sidee bay hadda uga falcelinayaan ilayska oo kale imika tusaale hadaynu soo qaadano geed haddaad beerayso tusaale geed soo qaado oo aad wax dedan aad ka hoos beerto oo aad u banayso meel yaro bannaan in yaroo meel yar bannaan aad u banayso meesha yar bannaan xaggu iftiinku ka xigo meesha yar bannaan aad iftiinka uga banayso halkaas uu iftiinku ka soo geliyo ayuu geedku u qalloocsamaya
sababta ugu qalasnay maxay reaction buu sameynaya yani inuu falcelin iftiinka uu ka falcelinaya oo xagga iftiinka uu ka xigay ayuu falcelinaya biyihina sidoo kale xididadii xaggii ay biyo ka xigeen ayay u badanayaan ama ay u leexanayaanba marka waa maxay response bay sameeyaan dhirtu iyagoo waxa weeye iyagu jawaab celin ka sameynaya react laakiin iyagu ma laha maxay sense organs xubno dareen ma laha all living things dhammaan nooleyaashu must reproductive waa inay waxa waa maxay sameeyaan waa inay tarmaan to replace u bedelaan those kuwa that die dhintay sexual reproduction waxa lagu yiri taranka jinsi laawhi does not involve kuma tacalluqo sex jinsi maana marka laga hadlayo nooleyaasha laba u qaybsama taranku waa asexual iyo sexual marka sexualku haddaad maqasho waa taranka jinsilaha waa female iyo male ba meesha jooga waa lab iyo dhadig weyn isku tagaan si waxa weeye ay usoo saaraan noole individual say usoo saaraan sexual reproduction waa taran jinsilaha waa hal noolun baa loo baahay bas isagu isku filan yahay uma baahna waxa weeye male laakiin sidiisa isagaa soo saaray waxa lagu yiri most animals xayawaanada badankooda plants iyo dhirtu half waxay leeyihiin male lab and female iyo dhadig sex organs male and female sex organs yani xubnaha yani jinsi lab iyo xubnaha jinsi ee dhadig way leeyihiin they use waxay isticmaalaan sexual reproduction taranka jinsilaha to produce siday usoo saaraan new individuals noolayaal cusub marka movement hadeen soo koobno yani astaamaha nool marka hadeen soo koobno astaamaha noolayaasha uu garto koob waa socod inuu sameeyo socodka marka laba loo qaybiyo inuu noolihii sameeyo socod dhammaystiran oo wada jira yani jirkiisa hal mar wada dhaqaaqayo oo loo yaqaano locomotion iyo inuu sameeyo qayb kamid inay dhaqaaqdo waxa weeye samayso movement kaana waxa la yaqaano localized movement marka locomotion kama ka wada jirka dhaqaaqay tusaalaan bini'aadamka kala tusaalaha marka adigu marka dhaqaaqayso jirkaaga lugnaha kana taagnaanayso intii kalena ma dhaqaaqayso laakiin waxa jirkaaga wada dhaqaaqay movement oo sameeyo localized movement waxa kamid ah sida kay sameeyaan dhirto kale ama plants oo kale ama fetal stage oo kale tusaalaan uur ku jirka oo kale ilmaha yar markuu uur hooyada ku jiro dee dhaqaaq dhammaystiran ma wada sameynayo marka halka ma dhaafayo halka caloosha hooyada buu ku jiray u baahanay waxa kamid ah feeding qudashadii marka qudashadii iyadu waxa weeye markuu sheegay nooli wax qudanay laba loo qaybiyo autotrophic iyo heterotrophic autotrophic nutrition ama autotrophic feeding waxa weeye waa mid isagu iskii wax quuto isagu sidiisa cuntada sameeysta waa plant iskii heterotrophic waxa weeye waa mid isagu maxay aan isagu iskii waxba quudanin oo wax weeye aan sameynin feedingkii self feeding aan sameynin waxa weeye isagu maxay cunta diyaarsan sameeyo bini'aadamka kale growth waa koritaankii shay kasta oo nool waxa weeye inuu koritaan sameeyo waxa weeye growth sameeyo oo kor u kaco oo halkii uu taagnaa ku sameeyo marka dhirtu iyo xayawaanadu kala duwan yihiin bini'aadamku waxa weeye koritaanka wadaya ilaa intuu ka gaadhiyo meel xadidan oo loogu talagalay dhirtina waa maxay iyadu waa maxay koritaankii way wadaysaa intay nooshahay respiration waxa weeye waxa weeye cunto gubisti in waxa weeye la sameeyo energy tamar la soo saaro si waxa weeye jirkii uu dhaqsameeyo dhaqaaq iyo koritaan uu sameeyo marka iyadana waa inta la sameeyo excretion waa qashin saarkiyo waa waxa wixii wasdiisa ma qashino uu jirkiisa ka soo saaro waxa weeye ka soo saaro waxa weeye noolihii uu iska soo saaro marka waxa la waxa qashin oo dhan bini'aadamku ka soo saaro carbon dioxide iyo wasdiska kala duwan sida urine kaadida iyo kale ama feces saxarada iyo kale dhirtina waxa weeye waa maxay iyaduna way sameeysaa iska sameeysaa marka dhirtu inta badan iyadu carbon dioxide habeenkii way soo diisaa iyadu waxayna qaadataa oxygen habeenkii maalintii waxay soo diisaa oxygen waxayna qaadataa maxay carbon dioxide bini'aadamka iyo xayawaanada iyo nooleyaasha soo daayaan gas exchange waxa weeye waa neef isdhaafsi ama waxa weeye in gas iskii la isdhaafsado waxa weeye bini'aadamka uu oxygen soo daayo oo waxa weeye waxa jeeda carbon dioxide soo daayo oo oxygen qaato dhirtina ay soo diiso oxygen maalintii sidoo kale carbon dioxide-kana ay qaadato sensitivity waxa weeye waa dareenkii response la yaqaan marka waa jawaab celin ka samaysto dareen weyn xubnaha dareen ayuu leeyahay nooleyaashu iyo waxa leeyahay maxay organs waxa weeye sense organs billion ama xubno wax dareema ama xawaas marka xubnahaas iyagu indhihi baa kamid ah dhegii baa kamid ah carabkii dhadhankii oo qaybta dhadhankii baa kamid ah maqalkii baa kamid ah markaas oo taas qaybahaas dareenka ee xubnaha dareenka ayaa loo yaqaanaa sense organs reproduce waa inuu tarmid weyn sameeyo bini'aadamkii waa maxay ma nooleyaashina waxay ku tarmaan iyagu taranka loo yaqaano jinsilaha ama sexual reproduction dhirtina waa maxay iyagu waxay ku tarmaan maxay ama waxa weeye nooleyaasha qayb qaar kamid ah waxay ku tarmaan iyaguna wax loo yaqaano maxay sexual reproduction marka waa maxay waa female iyo male ayuu u baahan yahay markuu yahay sexual markuu waxa weeye waxa weeye lab iyo dhadig ba ayaa loo baahan yahay sexual reproduction marka isagu waxa weeye waa taran jinsi laba looma baahna wax laba isaga sidiisa isku bacriminaya kuna soo saaraya new individual